السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داوديال meel kasto aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono YouTuberiska ku nool dalka Malaysia. xilligan hadda la joogo waa istaxasdaan kuwa si toos ah ay isku xasdaan kuwana si bareer ah. tusaale shalay waxaan ku joognay dalka Malaysia 3 YouTuber oo kala ah adna jannal arimaheena iyo aniga oo markaas watay garqaad media. dabayaaqadii sanadkii 2019 dhamaadkiisii waxa soo baxay tiro lagu qiyaasay ilaa 130 YouTubers kuwaas oo inta badan soo geliya vlogs iyo waxa ay ugu yeeraan challenge. dadka qaar ayaa aaminsan tirada ugu badan ee Soomaali isticmaasha YouTube-ka inay ku nool yihiin dalka Malaysia. tiradii marka ay badatay waxa luntay tayadii iyadoo ay rumooday hal heeskii ahaa caanooley waxba iskuma ogola midba midka kale ayuu u careysan yahay cuqdadii u qaba calooshana uga bukaa sidaas oo ay tahayna waa la isku dhool cadeeyaa. taasina waxa laga dhaxlay inay kala irdoobaan saaxiibo hadaf mid wata yimid halkan. ileen dani waaseete kuwa kalena xubbi iyo dhalanteed been ah ayay bulshada ku madadaaliyaan. inkastoo ay tiro badan yihiin misna kuwa ayaa ku jooga hibadooda iyo talentigooda u gaarka ah kuwa kalena waxa ma loo ogoleen inay soo bandhigaan hibooyinka iyo talentiga Ilaahay ku manaystay. kuwa ayaa waxa lagu gumeystaa wax markaas ay ugu yeereen shoot out iyo share haba u badnaadaan dumar inkastoo lagu xujeeyo waxa afka qalad loo yaqaano exchange oo micnaheedu yahay isweydaarsi. adduunka intiisa kale waxa la isku karaameeyaa sharafta iyo qiimaha bulshada aad ku dhex leedahay laakiin halkan waxa la isku karaameeyaa sida loo kala badan yahay micnaha haddii uu qofka kale ka subscribe badan yahay kana view badan yahay isku mid looma maamuuso. inta badan dhalinyarada isticmaasha YouTube-ka ee joogta dalkan aan ku noolnahay ee Malaysia waxa ku jira kuwa dadka aad uga qosliya oo leh hibo gaar ah. tusaale Fadil Abukar Awees oo loo yaqaan Dumdum waa YouTuber haysta wax ka badan 100,000 oo subscribe. muuqaalada uu soo geliyana waxa u badan rubaayado lagu dhiirigelinayo bulshada markaas ku xiran. haddaba aan daawano qayb ka mid ah muuqaalada uu soo geliyo YouTube-kiisa. soo dhawaada channel-keena Fadil Garara iyo dum ma salaama maanta waxaan rabnaa ciyaar qurux badan aan dheelin faanteen hala qaado waa kasbaa Garara iyo rawaani ay amina kana soo raaco saacadii ay koob sax xilligan hadda la joogo haddii aad u baahato inaad noqoto YouTuber waxa kaliya oo lagaaga baahan yahay waa inaad xirfad ama talent aad leedahay bulshada markaas kugu xiran aad u soo bandhigi karto. laakiin dadka qaar ayaa u arkaba inaan loo baahnayn xirfad taasi oo markiiba sababi karta inaad ku dhex wareerto social media sida dadka qaar ay soo geliyaan YouTube-ka. tusaale mararka qaar waxa arkaysa waxyaabo ka fog anshaxa kuwaas oo laga raadinayo inay leeyihiin daawasho badan. haddaba maxaa la gudboon YouTuberiska kuwooda indargaradka ah ee ku nool dalka Malaysia? kow inay garab qabtaan kuwa u baahan, inay isa saamaxaan kuwa kala irdeysan, inay samaystaan dalad ay ku mideysan yihiin waaba haddii ay suurtagal tahay. daawada haddii aad ku cusub tahay barta page-ka aan ku leenahay Facebook-ga ee Burhan Ali ama Burhan Channel waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkana aad sii share gareyso. mahadsanid.